soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada maanta waxaan ka hadlaynaa quruxda gabdhaha dumarka Soomaaliyeed. Gabadhan gabar Soomaaliya waaye. Quruxdeeda bal arag, dildhilaanteeda bal arag. Soomaalida dadka cadaanka ah waxay isaga egyihiin qaab samayska dadkan Negeeriyaanka la yiraahdo, qaab samayska isaga chat baan waxaan ka arkay meel lagu chatamo waxaan ka arkay inay Turkiga jiro. Soomaalida waxaa ka madow buu yiri dadkan la yiraahdo South Sudanka. Afrika oo dhan ka madow buu yiri. Madowgu ceema waa kalar aan leenahay waa qurux badan yahay. laakiin bal gabdhaheena waxaan rabaa inaan u barbardhigo gabdhaha Negeeriyaanka. Meeshaan waxaa ah gabar Soomaaliyeed iyadna khamaar qabta. dadka anaga labiskiisu shaqo kuma lihin. labiskoodana eed kaga sheegi mayno laakiin dumarna waa xijaabtaan. dumarku si u badan yihiin waa xijaabtaan. gabdhaha qaarkood westernka joogana madaxooda waa qaaweystaan. marka bal gabadhan waa gabar Soomaaliyeed. hadda qofku haddii la weydiin lahaa dad gabadhan wadankee ka mid waa Carab baa la dhihi lahaa. gabadhani waa gabar Negeeriyaan ah. wadankan walaalaha nahay dadka badan dadkiis 200 milyan bay gaarayaan. waa gabar Negeeriyaan sana walaalaheena u ogyihiin. qurux kuma maqana masha Allah. ilaahay ba suurad fiican buu sameeyay. banaanka dhan suurad ugu fiican buu ka saaray. marka iyaduna waa tan gabadhan iyaduna waa gabar Negeeriyaan ah. marka waa keesay marka meesha tan anaa meelaha ka dambeeya waxa weeye dumarka Soomaalida in iyaguna inay quwadooda arkaan. ragguna ay arkaan gabdhaha Soomaalida quruxdooda. masha Allah gabadhan gabar Negeeriyaan weeye. gabar qurxoon weeye. intaasaan ku ekaysiinayaa laagtii sharti iyo fulog basaar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.